بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك كسر هذا جل كل المدين waxaan doonayaa inaan isdul taago arrintan dabcan cusub ee shalay dhacday dabcan hadba xilliga aan video duubay ama hadba xilliga video uu soo galo dhowr noqdood aan ka hadli doonaa oo ah 5 noqdood gabadhan Latiifa way baxsatay horta kow nacam ma baxsatay ama loo fasaxay inay markaasi baxdo oo ay Spain ka degto yeesatahay ayada waxay tahay ugu horeyn waa gabadhii uu dhalay amiirka ama ra'iisul wasaaraha Imaaraadka dabcan waxay u noqotay ama ku noqotay laf dhuun gashay ayada uma aan dabcan cid baxsatay xaaskiisa hore u baxsatay yaani waxaad arkaysaa qasrigaasi oo intaas oo mar laga baxsaday iyo familka gabdha kale oo kamid ah oo dabcan ama sidoo kale wiilal xataa laakiin gabdhaha ugu badi oo ilaa hadda la yahay marka arinta ugu horeysa aan ka hadlayo waxay tahay maxaa kalifay inay baxsato nacam qoftan nolol wanaagsan ay haysatay wax walba oo ay u baahan tahay nimco ah way haysatay sabab marka ay ku dhacday inay markaas intaasoo video oo cabasho ay soo duubto inay baxsato la soo qabto la xiro waliba dabcan la geliyo meel ay xataa cidna ka arkayn videoga ugu dambeeyay ay soo duubtana wuxuu ahaa dabcan ayadoo markaasi qol ku jirta u fiirso kaligeeda ah oo ay sheegayso 5 nin oo waardiye ah oo askar ah inay banaanka guriga ay joogaan laba dumarna inay gudaha ku jiraan oo askar ah daaqad haba yaraateen aynan macnaha u furneen qolka ay ku jirto oo weyn albaabka kaliya dabcan ay haysataa albaabkaasina waa mid aanan xirmayn gudaha kama xiran karto wax haba yaraatee oo markaasi iyo meel ay ku baxsan karto ama wax ay ku baxsan karto haba yaraatee ma haysato waa goorma oo markan ugu dambeysay dabcanna inta mar ay baxsatay dhammaan waxay ku dhamaadeen inay fashilmaan marka arinta waxay tahay xurriyadda insaanka inay u tahay wax aad u weyn Soomaalida maqal qolay qorqabad biyo kuma cabto qof macnaha inta yani hanti haysata ama waalidka dhalay oo nimcadaasi ku dhex jirta maxaa kalifaya inay sidaa fakad u noqoto ay baxsato nacam ugu horeyn waxaan dhahaynaa caruurta wax alla wixii lagu barbaariyo ayay noqdaan ama ay jeclaystaan waxa lagu barbaariyaa ilmaha dabcan boqorada iyo amiirada carabta inta badan ayna ku koraan wadamadan reer galbeedka ah ay ku koraan ma ogtahay horta taas Sacuudiyaanka Imaaraadka Qatariyiinta Kuweydiyiinta Cumaaniyiinta xataa ku dar sidoo kale afwan Bahrainiyiinta yani khaliijka wadamadaasi aad arkayso muslimiinta ah carruurtooda ayagoo yar dhammaan say u dhan yihiin iskuul halkan ay ka dhigtaan siiba London ay ka dhigtaan ayagoo yar weliba iskuulada dabcan sarsare ee dawladda markaasi dadka ugu sareeya halkan Ingiriiska yani ay ardaydooda dhigtaan oo kale ilmahooda dhigtaan ay yimaadaan meeshana la keenaa lagu barbaariyaa marka mentality-ga ama barbaarinta ay haystaan ma ahan kii halkaasi u fiirso macnaha curig adiga aadan soo korin bay'adda iyo aqliyadda adiga aad ku soo kortay aanan ku korin horta ma hayn kartaa ma hayn kartid curig arkay ku soo noolaaday xurriyad waxaad doontaad dhihi kartaa waxaad doontaan samayn kartaa saa doontaad u labisan kartaa sidan yacnihii mentality-gaasi ku soo noolaaday iyo carabta iyo dhaqamadooda khaasatan waxaan ula jeedaa boqortooyooyinka iyo maxaan ku dhahay qasriyadan iyo sida nolosha ka jirta wixii lamidka ma ku noolaan kara macquul sama tahay macnaheeda ma ahan in ayaga ay dabcan dad asturan yihiin boqorada iyo familadooda iyo lama jeedo inay diin macnaha ku dhaqmaan lama jeedo waxaan ula jeedaa oo kaliya xurriyaddii iyo meel walbay doonaan iyo siday doonaan ay u dhaqmaayeen markay halkan joogeen dibadahan iyo wadamada reer galbeedka halkan markay ka baxaan waxbarashadii ay ku laabtaan waxa dhacdo waa maxay xirxirnaan iyo dabcan dhaqankii iyo waxa lagu daraaya nin annaga aan ku doornay iyo wixii lamidka ah marka waxa iskhilaafaya markiiba iska hor imaanaya qofkan sida uu ku soo barbaaray iyo sida familkiisa ay u rabaan automatically markiiba iskhilaafaya marka waxa dhacday ayadoo nimcada haysata ayadoo ma ahana dabcan inta kale dabcan baxsatay boqoradaasi xaasaskooda iyo gabdhahoodii ay ka baxsadeen dhammaan saasi ahayeen marka ayagoo nimcada haystaan wax walba wanaag haystaan dabcan adduunyada ku saabsan ayaa waxay doorteen faqri iyo dhibaato baxa ku noolaadaan sida ay rabaan inay u noolaadaan insaankan caadiyan waa xur ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu abuuray xur sidaas aad arkaysaa ilaahay marka uu leeyahay
qofkiina doonaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur yacni ciddii doonta ilaahay ha rumayso ciddii doontana iyaynan rumayn laakiin ha ogaato inaa actadnaa lilظaalimiina naaran axaata bihim suraadiquhaa macnaha kan daalimka ah kan ilaahay ku caasiyey kan doortay adduunyo iyo gaalnimo iyo wixii lamidka ah in ilaahay subxana watacala uu ka abaalmarinayo lagu abaalmarinayo waa maxay naar iyo dhibaato iyo cadaab ama marka ay tahay weeyaan diinta doorashada diintan ula jeeda ama adduunkaada iyo saad u noolaan lahayd dabcan xur ayaa tahay allaahumma waxaadan xur ka ahayn 1 iyo 2 iyo 3 yacni ashyaa la tirin karo marka waxaan leeyahay ugu horrayn taasi waa xurriyadda midda kale waxay tahay insaanka ma la caburin karaa oo ma la qasbi karaa hadalkan waataan ku bilaabayo qooley qoorqabad biyo kuma cabto nacam dooradaasi qoorteeda yare caatada ah inta soo qabatid qoorteeda oo fartaada iyo suulkaada un aad ku qaban kartid biyo xoog kuma siin kartid xaqiiq weeyaan nacam waa xaqiiq sidaa darteeda ayaad arkaysaa xurriyadda qofka si walboo looga qaado loo caburiyo la isugu dayo in la jujuubo macnaha in aynan macquul ahayn marna aysan suuragelayn waxaana kuu daliil ah waddamada cadba iyo waddamada dabcan dictaatoriyiinta ay ka jiraan ee afrikada tusaale ahaan oo kale inkastoo afrika waxba saasaynan dhicaynin inta badan afrika marka dictaatoriyiinta ay la dagaalamayaan iyo wixii la midka ama iska kicinayaan badana inqilaab ay ku kiciyaan inqilaab laakiin arrintii carbaha ka dhacday tawrada ahayd ee ay mudaharaadyada ahayd iyo wixii la midka ah ee aad taqaanaan inta macnaha xusni mubaarak dheh libiya qadaafi dheh ilaa hadda midda socotee suuriya ti yeman sidaas oo kale iyo meeshay ka bilaabatay oo asal ahaanba kowda ahayd tunisia marka shacabkaasi sabab ay sidaa u samaynayaan maxay madaxka ugu kacayaan maxaa ay sidaa dhibaatooyinkaas u samaynayaan noloshii kow ay haysteen iyo nolosha waddamadaasi qaar ka mid a maanta ay ku jiraan teesaronet waxa keenaya inay sidaa u dhaqmaan shacabka waxa weeyaan caburinta sidaa darteed insaanka iska dhaaf ummad shaqsi caadi ah gabadhaasa daliil u ah inaan la caburin karin oo siday macnaha la doono laga yeeli karin marka maxay dooratay ayada halkayse joogtaa maanta waxay dooratay ogowna kama hadlaayo madiinay ku soo kortay kuma aynan soo korin qoraanna kugu sheegay bay-adaha ay ku koraan bay-adaha lagu barbaariyo carruurta carabta oo dhan inta aan ogahay ciddii doonaysana dabcan way baari kartaa ma ahan bay-adahaasi waddamadooda la bay-ad islaam ma ahan bay-adaha ay ku koraan waa waddamadan reer galbeedka siiba london canada labadaasi wad in badan dadka ingiriiska joogan way og yihiin arrinta noocaas oo kale ah dabcan inay halkan ilmahooda ay ku koraan marka in badanoo dadka ingiriiska joogana dabcan way og yihiin halkan inay ku koraan carruurtooda marka waxaan usoo gudbaynaa bay-adda carruurta ay ku korayaan iyo waalidka carruurtiisa inuu asaga tarbiyeysto muhiimadda ay leedahay arrintanana dabcan usoo qaadanayna daliilkeeda waxa weeyaan inta badan carruurta carbaha khaasatan boqorada iyo wixii la midka ah halkana loo soo diraa ayagoo yaryar aad u yaryar weliba primaryga dugsiga hoose maxaan ku dhahay kan dhexe jaamacadaha intay kaga baxan badankooda waxaa lagu soo daraa waalidiin dabcan ma soo raaci karaan halkaasi inay ka taliyaane oo markaasi ay madax ka yihiin waxaa lagu soo daraa waa ayo waxaa lagu soo darayaa dad markaasi shaqaale ah ayaa halkan guri looga keenaya nolol wanaagsan oo cajiib ay halkan ku noolaanayaan iyo wixii la midka ah laakiin bay-addii ayaa waxay u beddelaysaa waalid la-aan tarbiya la-aan sida waddankaasi uu yahay macnaha carruurta waxay u noolaanayaan ay u korayaan sida gaaladii oo kale 100% dabcanna gabadhan hadda ladiifada aan ka hadlayno oo kale iyo gabdhaha la dhashay dhammaantooda dubay imaaraadka maxaan ku dhahay marka aad fiiriso sacuudiga marka aad fiiriso qatar fiiri madaxdooda dumarkooda carruurtooda bal fiiriya say u labistaan macarabta waddanka ay joogaan ay u dhasheen oo kale u labistaan misrael galbeedka oo kale u labistaan nacam carabtoo kale uma labistaan waddamadoo kale uma labistaan siday u labistaan dadka kale ee shacabkooda ah waxay u labistaan dhaqanka dabcanna ay leeyihiin kan halkan reer galbeedka ah sidaa darteeda waalidka inuu carruurtiisa asaga barbaariyo dhaqankiisa uu ku barbaariyo diintiisa uu ku barbaariyo muhiimadda ay leedahay arrintan oo kalea ka mid ah isfahan waaga familadaasi inta badan ka dhexdhacay ee carruurtoodana saameyn waxa ugu weyn ku leh waa maxay bay-adda ay ilmaha ku koreen isla arrintaas saameynta intaana ka bixin sidaas oo kale saameynta waddamada reer galbeedka ah ay ku leeyihiin dowladaha carabta gabadhaasi inta maray dhawaaqday ay fiidiyoda soo duubtay oo ay isku daysay inay baxsato bareeshar iyo culays ayaa dowladahan reer galbeedka waxay saarayeen u fiirso waxay saarayeen reer imaaraat mar walbana waa sidaa familadooda waxaa u taliya ama boqoradaasi aad arkayso waxaa u taliya wasiirada halkan ayaa u taliya
waxaan xusuustaa arrin cajiib ah qof walbana dabcan uu fiirsan karaa BBC daa soo daysay BBC inta badan gabadhan iyo familadan iyo falanqayso oo ka hadasho dabcan ciddii la socto way la socotaa wasiirka marka xilligaasi ee arrimaha dibadda ingiriiska gabadhan iyo familka iyo soo uga hadlay iyo ciddii fiirsata way yaabaysaa macnaha siday u dhex garayaan iyo say aga hadlayaan iyo sida markaas macnaha waa kolley wax hadda weyn oo ma ahan dabcan oo mufaaja'a oo la yaab leh dabcan wax weyn weeyaan laakiin wax la yaab leh ma ahan cid walbo arrimahan taqaano way og tahay sida markaasi loola dhaqmo iyo sida markaasi madaxdaasi halkan looga arko macnaha dad liita oo aan ummadooda dadkooda aan la ogolaan xurriyad dad markaasi noloshooda un ku fakaraya oo ka fakaraya oo macnaha dictatora ah dad aan ahdi iyo balan lahayn dad yani adiga aad u liita qof insaan kan ugu liita ayaa looga arkaa dibadahan ama madaxdan sidaasay u arkaan xataa madaxda un ma ahane shacabka waddamadan aan la noolnahay saasay u arkaan macnaha boqoradaasi carabta iyo dadkoodaba marka waxaa la arkay gabadhii latiifa ahayd oo baasaboor gacanta ku wadata kana soo degtay Spain sabab Spain baasaboorka halkay ka keentay ma ballanaa jirta lala galay dabcan inay xogaa soo wareegto kadibna soo laabato mise waa baxsad rasmi ah ama sidoo kale ma waxaa jira dhagar loo degay sida gabadhii calaa dabcan shilka gashay markaasi aabaheedana uu xirnaa oo dabcan siyaasiyiinta mucaaradka imaaraadka ku jiraa waa la dilay gabadhaasi sida la sheegay waxaa kaloo la sheegay dabcan in shil gaari iska caadi uu ahaa marka say ahaataba ma dhagar noocaas oo kalea jirta maxaa carab inta badan marka carabta waxaa lagu yaqaana qof alla qofkay kari waayaan way soo fasaxaan way iska soo diraan bax bannaanka aad dibadahana lagu dilayaa shil gaari iyo waa la waayey iyo wixii la midka sidaasaa loo dilaa marka say ahaataba qisadan waxaan u soo qaatay arrin aad u weyn aad iyo aad u weyn waxay tahay si walba qofka nimco uu u haysto ugu horreyn nimcadaasi uu haystana siday doonta u weynaato intay doonta la ekaato qofka haddii markaasi diin iyo taqwada alle iyo alla kabcabsi iyo haddii ay intaasi ay ka maqan yihiin noloshiisa wuxuu u noolaanayaa waa maxay si aad u liidata waxaana kuu daliil ah waxyaalaha ay u soo baxsanaa carabta inta badan hadda gabadhii rahaf qanuun ee sacuudiyaanka ahayd ee soo baxsatay marna aan ka hadlay nolosha ay gasho ma aragteen nolosha ay ku jirta ma aragteen nolol haba yaraatee aanan la garanaynin meelay u socoto meelay ka socoto saaxiib madow ahay yeelatay saaxiib weeyaan maahan isma qadaan macnaha way u dhashay oo cunigay u dhashay cunigiina waxay tiri ma rabo asagii waxay leedahay ma rabo yani nolol aan haba yaraatee xasilnayn yani waxay ku nooshahay nolol aad iyo aad u adag cid alle ciddii dabcan qisadeeda ama arrimaheeda aragta ee meelahan ka fiirisa way arki kartaa ogow marka ku dheganow wax walboo kugu dhaca xaalad walbaad ku sugan tahay nimco walboo kuu timaada oo mid ilaahay xarigiisa ku dhegan akhlaaqdaada iyo wanaagaada marna yaynan kaa dhumin waxaadna meeshan ka arkaysaa cashar weyn oo aad u weyn laga qaadanayaa waalidka inuu asaga noqdo shakhsiyaddiisa qofka barbaariya carruurtiisa inta badanna carruurta ay dad kala barbaariyaan sida carabta inta badan ay ka cawaadaan ay ka sheegtaan dhibaatooyin ay kala kulmaan isfahan la'aan marka waa cashar aan ka qaadanayno midda labaadna waxay tahay qofka si walboo loo caburiyo si walboo loo jujuubo si walboo xurriyadda looga qaado mar un haddiiba nolol ilaahay u qaray mar un inuu baxsanaayo mar un inuu fakanaayo mar un inuu silsiladihii ku xilna uu ka baxsanaayo macnaha noloshuu doona ha u baxsado mid wanaagsan ha u baxsado mid xun ha u baxsado waxay ahaataba laakiin qofka ibni aadamka ah inaanan cidna jujuubi karin cidna qasbi karin weligiisa taana waa cashar kale oon ka qaadanayno midda ugu dambaysa ugu weyn aan kugu daraayo oo aan kugu khatimayo waxa weeyaan xurriyad walbaad haysato si walbaad xur u tahay si walbaad u tahay qof wuxuu doona heli karaya ama waddamadan dabcan ku nool reer galbeedka ah ha ilaawin in ilaahay subxana wa tacala uu ku eeganaayo ilaahay subxana wa tacala uu kula socdo adiga iyo qabriga keligiin inaad is arki doontaan in keligaada aad dhiman doonto sida shalayba keligaada lagu dhalay keligaada lagu soo saari doono ilaahay tabaaraka wa tacaala ilbiriqsi inuunan ku moogeyn xaalad walbaad ku sugan tahana ilahay inuu ku muraaqabaynaayo ha ilaawin ilaahay subxaanahu wa tacaala muraaqabadiisa inaad ku jirto xuraan ahay waxaan doonaan samayn karaa sidaan doonaan u noolaan karaa nacam waa sax xur waa tahay saa doontaad u noolaan kartaa laakiin ha ilaawin siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula doona inaad u noolaato intaasaan kusoo khatimayaa ilaahay subxana wa tacala dhammaanteen hana sugo ilaahay ha nabad hanuuniyo adduunka wuxuu marayaa meelihii ugu dambeeyey marka aad fiiriso calaamaadkaad arkayso waa calaamad aad la yaab u leh qof yacni familkaasi ka dhashay noloshaa haysta ayaa wuxuu dooranayaa xaaladdaas aad arkayso
إلهي مركز تبارك وتعالى وحان ويدي سننا إنه نجد بديل قاضا إننا نفسد إن إشادين إن نجات كان إلهي سبحانه وتعالى ويدي سننا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر